waa BBC oo aad ka dhageysataan mujadaha gaagaaban efimada magaalooyinka qaar ee bartana internetka ee bbcsomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysatay saacada Afrikada Bari waa 7 aroornimo oo gow ah waana maalin Arbaca ah taariikhduna tahay 24 bisha Janaayo. qodobada idaacada subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah mas'uul ka tirsan dawladda Jarmalka oo dhaliilay duulaanka Turkiga ee Suuriya kuna baaqay in la saaro cunaqabataynta hubka riyadii rumoobi weyday ee uu sababta ahaa madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump. riyadayda waxay ahayd in aan maxootinimada ka baxo oo aan tago meel yani nabadoon oo ilmahayga wax ku baro waa la isoo celiyay waliba waxa la isoo celiyay qaab adag oo waxba la sheegin. reer miyiga ay abaarta xoolaha ka dhamaysayna qaarkood waxay u diga rogteen tabcashada beeraha. lo geel ari waa lahaan jiray ariga 3 tiro halka ka sooftay 3 tiro gaari baan saaro bari baan geeyay 60 neef baa iga soo noqday beel badan oo 5 qoysaan dadkaas wax beeranaya baan rana waxaan isla naftaada ku maaray iyo wixii ma garanaysaa ku hoos jooga. dad badan oo ku dhintay qaraxyo ka dhacay meel u dhow masjid ku yaal dalka Liibiya. dabcan ciyaarihina kama marna barnaamijka. soosaaraha barnaamijka waa Xasan Cali Geele anigoo Bushra Nuur Maxamed ahna waan idin la socodsiin doonaa balse marka hore warkii BBC-da iyo Cabdinaasir Saxan Saxo. mahadsanid Bushra. doorashooyin madaxtinimo oo waqtigooda laga soo hormariyay ayaa looga dhawaaqay dalka Venezuela kuwaas oo la qorsheynay inay dhacaan dhamaadka bisha Abriil ee sanadkan. madaxweyne Nicolas Maduro ayaa sheegay inuu doorashada u galay si uu u helo sharciyad cusub si uu yiri dalkiisa uu uga difaaco quwadaha caalamiga ah oo uu ku eedeeyay in kooxaha garabka midig ay la maleegayaan shirqoolo dalkiisa ka dhan ah. qaar badan oo kamid ah mucaaradka ayaa xabsiyada ku jira iyaga oo lagu eedeeyay inay kiciyeen rabshado. qalabka warbaahinta Mareykanka ayaa tabanaya in dacwad oogaha gaarka ah ee baaraya fadeexada ku saabsan faragelinta la sheegay in Ruushka uu ku sameeyay doorashadii Mareykanka in markan uu doonayo inuu wareysto madaxweyne Donald Trump. kooxda Robert Mueller ayaa la sheegay inay damacsan yihiin inay Trump ka ogaadaan in uu isku dayo inuu is hortaago baaritaanka. gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee Jarmalka Norbert Röttgen ayaa ku baaqay in dawladda Turkiga oo xubin ka ah gaashaanbuurta NATO lagu soo rogo cunaqabateyn xagga hubka ah. gudoomiyaha ayaa sheegay in howlgalka Turkiga uu ka wado waqooyi bari Suuriya uu yahay mid sharci darro ah. weeraro ismiidaamin ah oo loo adeegsaday laba baabuur oo ku qarxay meel u dhow masaajid ku yaala magaalada Benghazi ee dalka Liibiya ayaa waxa ku dhintay ilaa 27 qof waxaana ku dhaawacmay tiro kale. muuqaal laga duubay goobtii ay mashaqadu ka dhacday ayaa waxa uu muujinayaa dad badan oo dawaqsan iyo kuwa kale oo meydad si halhaleel ah uga guraya gaadiid uu boolisku leeyahay. ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Japan Shinzo Abe ayaa sheegay inuu ka qayb galayo ciyaaraha dayrta ee Olombikada ee ka dhacaya dalka Kooriyada Koonfureed. arintani ayaa dhacaysay xilli uu wali labada dal u dhaxeeyo muran ku saabsan haween Kooriyaan oo xilligii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka loo geeyay askarta Japan si ay uga istareexaan. qoraaga Mareykanka ah ee arrimaha mala-awaalka iyo rajooyinka qiyaaliga ah wax ka qorta Ursula Le Guin ayaa geeriyootay iyadoo 88 jir ah. haweeneydani ayaa aad loogu xasuustaa buuggeedii lagu magacaabo Earth Sea oo ay aad u akhristaan dadka dhalinyarada ah iyo kan kale ee lagu magacaabo The Left Hand of the Darkness. ugu dambeyntiina xildhibaanad ka tirsan aqalka sare ee Mareykanka ayaa lagu wadaa inay xariiqdo taariikh ugub ah muddo bilow gudahooda iyada oo noqonaysa qofkii koowaad oo xildhibaanad sanad ah Mareykanka ka tirsan oo ilmo dhasha. Tammy Duckworth oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga lagana soo doorto gobolka Illinois ayaa sheegtay inay xaamilo tahay lana filayo inay gabadh dhasho bisha Abriil ee soo socota. haweeneydani oo asal ahaan u dhalatay dalka Thailand ayaa ah sargaalad howlgab ka noqotay ciidamada iyada oo labadeeda lugoodba ku weysay dagaalkii Ciraaq. warkiina waa naga intaas. Saxan Saxo waa u mahadsan yahay dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka.
bilowne sidaad warkaba ku maqlayseen dowladda Jarmalka ayaa wajahaysa baaqyo loo soo jeedinayo oo lagu doonayo inay joojiso dhoofinta hubka dalka Turkiga kadib markii la ogaaday in hub Jarmalka laga leeyahay loo isticmaalay dagaalka Turkiga uu kula jiro dagaalyahanada Kurdiyiinta ee Suuriya. Siyaasiyiin ka soo jeeda Jarmalka waxay dalbanayaan in la hakiyo heshiiska lagu xoojinayo taangiyada maalintii Sabtida ay ciidamada Turkiga howlgallo ka bilaabeen waqooyi galbeed ee dalkaasi Suuriya. Warbixintii ay murtaasi BBC-da ka diyaarisayna waa kan Xasan Cali Geyle oo soo jeediya. muranka cusub ee u dhaxeeya wadamada Turkiga iyo Jarmalka ayaa ku soo beegmaya usbuucyo kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee labadan dal ay ballan qaadeen inay wanaajin doonaan xiriirka laba geesoodka ah ee u dhaxeeya dalalkooda. xiriirka labadan dal ee ka wada tirsan gaashaanbuurta NATO ayaa sanadadii dambe aad u xumaa. Jimcihii la soo dhaafay ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in xukuumadda Berlin ay sheegtay inay aqbali doonto codsi uga yimid Ankara oo ahaa in Berlin ay dayactirto ay casriyeyso taangiyada Leopard 2 ee lagu sameeyo dalkaasi Jarmalka si looga dhigo kuwa u adkaysta qaraxyada. balse Norbert Röttgen oo ka tirsan xisbiga haya talada dalka Jarmalka isla markaana ah gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Jarmalka ayaa cambaareeyay howlgalka militariga Turkiga uu ka wado waqooyiga Suuriya. waxaana dalbaday in cunaqabatayn dhanka hubka la saaro dalka Turkiga. When we see that not only on the domestic scene markaan aragno sida dawladda Turkiga ay u weeqayso dimuqraadiyadeeda gudaha iyo sareynta sharciga dhanka kalena ay duulaan sharci darro ah ku qaadayso dal kale waxay la tahay in iibinta hubka ee Turkiga xilligan ay tahay in la joojiyo gaar ahaan xoojinta tayaynta taangiyadooda dagaalka particularly with relate to the bolstering of the efficiency of tanks. taangiyada Leopard 2 ee lagu farsameeyay dalka Jarmalka ayaa la rumaysan yahay in Turkiga uu isticmaalay dagaalka ka dhanka ah kooxda dawladda Islaamka ee dalka Suuriya balse khubarada dhanka gaashaandhigga ayaa warbaahinta Jarmalka dhawaan u sheegay in taangiyadaasi sidoo kale loo adeegsaday howlgalka Turkiga ee ka dhanka Kurdiyiinta. dhanka kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in howlgalkaasi Turkiga ee ka socda waqooyiga Suuriya ay ku barakaceen qiyaastii 5,000 oo qof. Turkiga ayaa gobolka Afrin ee Suuriya waxa uu Kurdiyiinta ka weeraray dhinacyo badan waxaana duulaankiisa ku wajahaya Kurdiyiinta Suuriya oo Turkigu u arko inay xiriir la leeyihiin kuwa PKK ee ka dagaalama gudaha Turkiga. Ra'iisul Wasaaraha Turkiga Ben Ali Yildirim ayaa ballan qaaday in gobolkaasi ay ka nadiifin doonaan waxa uu ku tilmaamay argagixisada. Fırat Kalkanı harekatında olduğu gibi sidoo xaalka ahaa howlgalkii Furaat ee ciidamada Turkiga ay ku farageliyeen dalka Suuriya intii u dhaxaysay bishii Agast 2016 iyo March 2017 dhammaan xubnaha argagixisada waa laga sifayn doonaa gobolka. walaalaheen reer Suuriya ee u soo qaxay dalkeena si ay naftooda u badbaadiyaan waxa u suuragali doonta inay dib u laabtaan oo halkaas ku noolaadaan. wax kastoo nagu qaadataba waxaan burburin doonaa xayndaabka argagixisada ee isku dayayaan inay gobolka ka sameeyaan. terör koridorunu başlarına yıkacağız. codkaasi waxa uu dambeeyay warbixintii geela uu inala socodsiinayay haatanna Liibiya. warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya magaalada Benghazi ee bariga Liibiya kadib markii laba qarax oo waaweyn ay ka dhaceen halkaasi. warbaahinta gudaha ayaa ku waramaysa in 22 ay ku dhinteen qaraxyadaasi halka warbaahinada caalamka qaarkoodna ay ku waramayaan in 33 qof ay ku dhinteen 51 kalena ay ku dhaawacmeen. sanadihii u dambeeyay magaaladaasi waxay noqotay goob ay ku dagaalamaan maleeshiyaadka islaamiga ah iyo xogaga sheegtay inay yihiin ciidamada qaranka. wariyaha BBC-da Rana Jawaad ay warbixintan inooga soo dirtay Liibiya waa kan Xasan Cali Geyle oo soo jeediya. dadka ayaa waxay ka soo baxayeen masjidka kadib salaadii cishaha markii uu dhacay qaraxii ugu horeeyay. dad rayid ah iyo saraakiil ka tirsan militariga ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay qaraxani. saraakiisha ammaanka ayaa waxa ay sheegayaan in laba qarax oo dhiig badan uu ku daatay oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay walxaha qarxa ay ka dhaceen meel ku dhow masaajid ku yaala degmada Al-Salimiin ee magaalada Benghazi. waxaana qaraxyadan u dhaxeeyay muddo 15 daqiiqo ah. inta badan qaraxyada noocan ee ka dhacay dalka Liibiya ayaana la sheegan inkastoo aysan cadeen cidda leh mas'uuliyadda weerarkan. haddana Hatim Al-Arabi oo ah afhayeenka dawladda saldhigeedu yahay bariga Liibiya ayaa u muuqda inuu ku eedeynaya kooxda la baxday dawladda Islaamka ee magaaladaasi dagaalka kula gashay militariga sanado ka hor. waxa uu sheegay in dagaalka ka dhanka argagixisada uusan dhammaan ayna suurtagal tahay in magaaladaasi ay ka howlgalaan koox taageersan dawladda Islaamka oo isqarinaysa. waa hagaag dhageystayaal halkaad wali nagala socotaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
haatanna dhadhaab sanadkii uu madaxweyne Donald Trump uu ku guuleystay xilka madaxtinimada Mareykanka qaxooti badan oo ku jira xereyaha qaxootiga ee dhadhaab oo rajaynayay inay dib u dejin ka helaan Mareykanka ayaa waxa ay aad u saameysay go'aankii madaxweyne Trump uu dalkaasi markaas uu dalkiisa uga mamnuucay muwaadiniin 7 dal oo Soomaaliya ay ku jirto dawladda Kenya waxay dalbatay in la xiro xeryaha dhadhaab oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 300 oo kun oo qaxooti Soomaali ah sanad kadib go'aanka madaxweyne Trump waa sidee xaaladda dadkii sugayay dib u dejinta bashkaas jug soo dhacay oo safar shaqo u jooga xeryaha qaxootiga ayaa hadda si toos ah qadka ugu jira وما سنتي بشرى إن وقتها وعن قصونا إلى داب ساس شيكتي إن ترى دتك قحوتيدا أو رجع قبل مارتين يوقعان ودن كمريكان كا سي إنه إسبدل مارتين ورشود أي وحلان أيامات كوبا حريان كويلان داب كواسي أسور تقلين قار واي بس كقوستين أو إلى وقت الصومالي يكون نقدين مش قار كون مكا أي إسكجوان حريان كويلان داب يفافي أي كوفيلا إن مارتي قوانك كصباحي ودن كمريكان كا إنه إسبدل doona oo in dawladda marka arintaas ay ka soo noqon doonto laakiin wax soo socda ilaa waqtigan lama hayo sanad kadib markuu madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay in 6 wadan oo Soomaaliya kamid tahay aan loo ogoleen muwaadiniinta maalta ka imaadaan inay wadankaas ay soo galaan mar hore ayaa waxaan booqday xerada qaxootida ee Xagardheer warbixintan ayaana ka diyaariyay وقولي محمدين حسن نور حلو عيارة المهيسة أساقا حاسكيسا إيه سن الموضوع دلي أيا وحي كميدين بغلال قحوتي وكنو الحريان كويلان دابي وفافي وسامين وين يكويلد قوانكي كسبح دولة مريكانكا وينو كوديدي إن أي قاد قحوتي كنو الحريان كويلان دابي وفافي محمدين أيا وحو بلاوي سفرتان وكتاقي لاي ودن كمريكانكا 7 سنة ولا سو دافي wuxuuna ku guuleystay in wadanka Mareykanka loo qaado dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay laakiin asagoo ku sugan magaalada Nairobi oo ina ka dhimantay maalmo in loo qaado wadanka Mareykanka ayaa madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump amar uu ku bixiyay in qaxooti ka socdaan 6 wadan oo Soomaaliya ka mid tahay aan la keeni karin wadanka Mareykanka maraan gurigiisa kula sheekaystay Maxudiin ayaa wuxuu iga waramay safartii uu ku tagay Mareykanka sida ay ku bilaabatay markii soo baxay la yiri waxaan bilaabay in aan dadkii saaxiibada ay ahaa marka hore u hambaliyay oo dhaho waan tagayaa reerkaygana waan diyaariyay dhar cusub baan soo gadanay waxoogaa yar oo duca ayaan samaysanay gurigana waxoogaa wuxuu ka aroos xaafadaha dadku waxay iga imaadeen salaan iyo inay yani isagootiyaan soo dareenkayga aad buu u fiicnaa dareenkayga aad qofka iga maqnaa xataa waxaa laga yaabaa inaan telefoon kula hadlay oo aan dhahay waan tagaynaa guriga alaabtii waan bixiyay jirikaanadii biyaha lagu bixiyay joodariyada ilmaha yani lagu seexinayo waan bixiyay weelkii waan bixiyay maxaa jira waxaan lahaa dadka kale ee ka dambeeya ha ka faa'iideen oo adigu maradaad ka tagayso si marka waan bixiyay wixii oo idil Maxudiin ayaa isla waqtigaas waxaan weydiiyay wixii reediisa ahaan leed haddii uu ku guuleysan lahaa inuu tago wadanka Mareykanka riyadayda waxay ahayd in aan qaxootinimada ka baxo oo aan tago meel يعني نبضون والإلمهاية وحكو بارو ونرشيدنا أن وحكا قبدلو وأن وحلق يبصد ضدك الدنيا ظهور مركز سمينية وهي قحوتيجي ظهور مركز لغو سمينية ويري هاي مركز وحاد وينا إن أن غير كيغانا وحو ترو أني غانا أن متقانا نرشي كبلعابو أنقل كدوان متك أن هدا كجيرو ساسا يهدرون مركان رنتك هاقا هالو أدبان ورجوينا أنا أنطر وقال إسو عليي وليبا وحال إسو عليي قاب أضق أو محبل إيشيكي هيا اللي إسو عليي وبابورك مركي أنفولي وبورسوين كنغي أن حريني أيا مقعيدة اللي يري dadka magacyada la yeerin doono xafiiska ay yimaadeen qaxootigana uu yaqaan ayada baabuurka uu tagay hadii xafiiska lagaaga yeero waa arin adag waa in lagu noqdo xafiiska ma jecla waana loo yeeray waxa la yiri ma tagaysan baabuurkii dad baa raacay annagana boorsooyinkaygii baan soo qaadanay runtii aad baan uga xumaaday meeshaan aan waqtigan ku sugnahay waa xerada qaxootida ee Xagardheer waxa jooga dad badan oo u socdeen wadanka Mareykanka laakiin ay u suurtagal waasay kadib marka madaxweynaha Donald Trump uu amar ku bixiyay in dadka qaxootida oo joogaan xeriyaan ku yeelan dhadhaab iyo faafi aan loo qaadin wadanka Mareykanka magaca Bakar Maxamed Bakar anoo bixiro oo maanta loo bixsan goolkan uu xareey markaan soo laawno wax walba marsan amarna maxaan u liga Nairobi marka fly albaabka diyaarad marka soo gal rabno aanu labta
dultra madide sana jirta soo jirta salaatan Allah taasoo salaana marka dheeraan ku sugnaa qooti dheeraan jooga alxamdulillah waan iska shaqaystaan iska xamaalna hooyadan ku biilaa walaalina ku biilaa rajo kale meel qabtaa inaad wadanka Mareykanka aad fursad kale aad u heshiisaad u kacdid hadii ilaahay fursad nasiyo awlaan u talgalaan baxno waan baxnaa hadii ilaahay u talgalna intaas ka xamaalnayna bal ka waran wadanka Soomaaliya in lagu laabto wadanka Soomaaliya borta dhul hooyo ay idii karto male laakiin aan wali aan arkin inta hore hadii aad fursad helayd wadanka Mareykanka ku tagtid maxaa noloshaada iska bedeli lahayd nolosha waxaan ku jirnaa daktar noqdo oo dadkeegi iyo shacabkeegi aan qabto aan jeclaystay baska dugso BBC dadab وهاجاك dhageystayaal in warbixintaasina hadaan halkaas uga gudubno Mareykanka warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaysa in dacwad oogaha qaaska ah ee baarayay ku lug lahaanshaha Ruushka doorashadii in madaxtinimada ee Mareykanka ka dhacday sanadii 2016 uu doonayo in uu waraysi la yeesho madaxweyne Donald Trump toddobaadyada soo socda in aqalka cad ayaa sheegay in uu aad ula shaqeyn doono baaritaanka socdana uu gacan ka geysan doono in warbixintii ay BBC-da arrimahan ka diyaarsan waa kan Maxamed Cabdiraxmaan oo soo jeediya maalin kadib markii ay soo baxday in Robert Mueller uu waraysi la yeeshay xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa wargeyska Washington Post waxa uu ku waramayaa in kooxda dacwad oogahaasi ay hadda doonayaan in ay wareystaan madaxweyne Trump waxaa la sheegay in baarayaashaasi ay doonayaan in madaxweynaha ay ka ogaadaan in asaga ama qof kale oo ka tirsan maamulkiisa ay isku dayaan inay horjoogsadaan baaritaanka socda waxaa la rumaysan yahay in su'aalahaasi diiradda lagu saari doono go'aanka uu madaxweyne Trump shaqada kaga eriyay agaasimihii hore ee FBI-da James Comey iyo iscasilaadii la taliyihiisa ammaanka qaran Michael Flynn aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo ayaa sheegay in aanay run ahayn eedeymahaasi sheegaya inuu xiriir dhex maray maamulka Trump iyo Ruushka isla markaana aanu ka hadli doonin cidda ay wareysan doonaan kooxda uu hogaaminayo Robert Mueller qaarkiin waxaad nagala socotaan barteena bbcsomali.com kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba barta bbcsomali.com waxa ka go'an inay ku soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyagoo oo maqalaya muuqaalba leh warbixinadii ugu dambeeyay waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay ku soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook booqo oo kala soco mobilkaaga wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com markasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com Puntland waxaa dad xoolihii abaartu dhaafisay ay u digarogteen in ay tabcadaan beeraha kuwaasoo ay doonayaan inay ku maareeyaan noloshooda abaartii samaan ka dhacday ayaa ahayd mid saameyn weyn u geysatay bulshada reer guuraaga ah ee ku nool Soomaaliya gaar ahaan Puntland waxaa jira in qoysas badan ay la daala dhacayeen ama kaasi nolosha dadkan hadda ku howlan tabcashada beeraha waxaa haysta caqabado ay kamid yihiin cilmiga beeraha oo aysan markaasi fahansanayn biyaha oo ku yar warbixinta amuurtaasi ku saabsanaa wariye Axmed Cawil ayaa inooga soo diray Garoobe waxaan ku sii socdaa beeraha Jimagalle ee ku yaala dawladka Garoowe si aan ugu koorgalo xaaladda beeraleyda ay ku jiraan gaar ahaan haddii ay jiraan dad samaanka xoolihii dhaafeen oo u odragtay tabcashada beeraha markii aan gaaray Durba waxaan la kulmay dad iskugu jira rag iyo dumar kuwaas oo dhex taagan beeraha ku yaala goobtan magacaaga Shamis Ciise Maxamed Shamisay xoolo malahan jirta waa lahaan jiray lo geel ariga saddex tiro halka ka sooftay saddex tiro gaari baan saaro bari baan geeyay 60 neef baa iga soo noqday beel badan oo 5 qoysaan beeruhu waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee nolosha bini'aadamka lagu maareyn karo inkastoo ay u baahan yihiin aqoon gooni ah oo ka badan tan xoolaha lagu dhaqdo dadka reer guuraaga ah ee xooluhu dhaafeen waxa soo wajahday caqabado ay ka mid yihiin biyaha oo ku yar goofafka ay rabaan in ay beertaan iyo cilmiga beeraha oo aysan fahansaneen inkastoo beeraleyda dariska la ay ka bowsadaan
dadkaasoo wax beeranaya baan arkana waxaan isla naftaada ku maaray iyo wixii ma garanaysaa ku hoos jooga hadda iyagii baa marka waxaan xunkaa baan iska mudaysanaa ilaahay nagu nooleeyay nimankaana dil guud isku sheega waxaan guddi baan inuu caalinka aynu ku tagaynaayo haddii la cirkay dhulka aynu kala haynaayo wayninka waa riig waa qalabkii beerta oo mid lagu qufo mid maxaan ku dhahay lagu buufiyo mid lagu wax walba way leedahay beerta waxyaalo badan bay leedahay midna uma haysano hadda cilmiga yarka ay ku shaqaysatay beerta ay ku quftay yaa tusay dadkaasaan ka arkay aniga beeraha u xogtagay beerahan gal beeraha markaan galay baan waxaan arkay sida ay wax u sameynayaan isay wax leeyihiin iyo dil ay ku rayaan yaambada isiyo tuubada walaalo isiyo mar igu sii daayo waxaasan ku abuurtaa qoysaskan ka mid ahaa dadkii abaartii sima Soomaalidu u bixisay xoolaha ay ka cayraysay ayaa u baahan gacan qabasho ay ku maareeyaan nolosha waxaana halgan adag ay ugu jiraan sidii ay iskaga difaaci lahaayeen gaajo adag oo soo wajahday sida uu tilmaamayo Cabdi Cali oo ka mid ah dadka hadda bilaabaya beerista dalagyada kala duwan marka xoolo laga dhamaaday dan baana baday inaan dhulka wax kala soo baxno marka sida daraadeed macnaha aanu markaasna waana u aynayday beertii markaan qudaar ku beerno waxba naga soo baxay Puntland markii aad joogtid waxa arkin dadka oo ku howlan tabcashada beeraha kuwaas oo fahmay faa'iidada ku jirta sida ay sharaxayso Xalima Sacdiya Shaqaali oo iyadu goorsii horeysay abuuratay beer ay ku leedahay magaalada Garowe agagaarkeeda dadku beeraha waa fahmeen dadweynuhu aad bay u fahmeen waliba shaqo la'aanta jirta la ajligeed tirada sanad walba ku biirta beeraleyda aad bay u tiro badan tahay iyo qoysaska ku soo biiray inay beeraley noqdaan hase yeeshee waxaa maqan doorkii dawladda waxaan jeclaan lahayn sida uu hadda yahay inuu ka sareeyo ama wasaaradda beeraha iyo hay'adka la shaqeeya sababtu waxay tahay cudurro badan aan garanayn baa soo wajahay oo dalagii naga laayay waxaa laga yaabaa injineerinta iyada ama qaabka iyaga wax beeridda wax badan ka dhiman yihiin waxaa maqan oo kale doorkii dadku intay iskaashatooyin u sameyn lahaayeen ay dhaqaalahooda iyo xoogooda iyo xirfadooda intay sugayaan si miro dhal ah ama wax miro dhal ah u soo saari lahaayeen codkaasi waxa uu dambeeyay warbixintii wariye Axmed Cabil oo inooga soo diray Garowe haatana dhageystayaasha Facebook arahdooda inuu soo gudbiyay waxa kamid ah Cabdicasiis Cabdullaahi Daahir oo jooga magaalada Balad Xaabo waxa uu leeyahay reer miyiga ay xoolaha ka dhamaadeen ee hadda tabcashada beeraha galay waa u bogaadinaya waxay muujinaysaa in haddii aad dhinac ka shaqeyn weydo in aad bal dhinaca kale ka shaqeysiiso Maxamed Cali Caalin oo jooga Baladiig waxa uu leeyahay reer baadiyaha waxa uu dhaanta dhaqista xoolaha iyo xanaaneyntooda kuma raacsani inay isu bedelaan beeraley haatana ciyaarihii dhageystayaal kooxda Manchester City ayaa gaartay finalka ugu horeeyay tan iyo intii uu tababaraha u noqday Pep Guardiola kadib markii ay xalay ka adkaatay Bristol City ciyaartaasi oo ahayd lugtii labaad ee nus dhamaadka koobka Carabao Man City oo lugtii hore ku soo badisay 2-1 ayaa waxa ay xalay ku adkaatay 3-2 iyadoo goolka guushana uu ciyaarta oo sekano ay ka dhiman yihiin u dhaliyay Kevin De Bruyne kulanka kale ee lugta labaad ee semi-finalka ayaa caawa waxa ay dhaxmari doontaa kooxaha Arsenal iyo Chelsea kooxda soo baxdana waxay finalka la dheeli doontaa Man City haatana dhageystayaal aynu aadno ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ka howlgalaya qaar kamid ah goobaha adduunka ugu khatarta badan ayaa waxa looga baqay in ay diyaar u noqdaan loogu baaqay in ay diyaar u noqdaan inay isdifaacaan haddii ay halis daneemaan warbixin cusub oo loo gudbiyay xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in 56 kamid ah ciidamada qaramada midoobay la dilay sanadkii aynu soo dhaafnay tan iyo sanadkii 2013 195 kamid ah ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ayaa ku dhintay weeraro lagu soo qaaday haddaba maxaa ku kaleefay in waqtigan ay ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay cabsi dareemaan Ciise Xaaji Cabdulle ayaa arintaasi ka wareystay Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka faalooda arrimaha caalamka si warbixinta ay qorayso sanadkan soo dhaqan 2017 ilmo badan ayaa kaga dhintay jimcida qurmaan ka dhaxaysa Darfur oo kale ciidan kaga dhintay Central African Republic ciidan fara badan kaga dhintay iyo meelo badan oo kale Afrika waxa u badnaadeen taa marka waxay keentay marka inay isbedesho rules of engagement ay ku socdeen oo ah marka inay weerar qaadi karaan oo cadowga in haddii cabsi dareemaan marka inay cadowga iska dhicin karaan oo marka cadowga meesha ku weerari karaan ayay martirtu warbixinta ay xusaysaa Cabdiwahaab sida warbixintaasi cusub lagu sheegay ee loo gudbiyay xogayaha guud ee qaramada midoobay 56 ciidan ee nabad ilaalinta la dilay sanadii aynu soo dhaafnay ma saameyn bay ku yeelatay aad leedahay arintani inay horseedo in aminkan loo ogolaado inay weerar qaadi karaan
warbixintaas loo gudbiyay yani ninka Antonio Guterres oo xogayaha guud qaramada midoobay waxay bedeshay qaabkii marka ciidamada ay howlgalayeen oo macnaha maadaama ciidamada fara badan ay ka dhinteen ay marka doonayeen inay bedelaan macnaha qaabkii u dagaalami jireen iyo qaabkii howlgalku u sameyn jireen si marka ay u yareeyaan tirada jimcida qurmaan ka dhacaysa ciidamada ka tirsan ee dhimanaysa inay marka yareeyaan arrintan sidoo kale sumcad xumo ma ku keeni kartaa ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee markii hore magac ama sumcad fiican caalamka ku lahaa saameyn intee la-eg ayay ku yeelan kartaa kalsoonida lagu qabay horta markii dhabti la hadlo haddii arrintan micnaha ay dhacdo way dhici kartaa marka inay saameyn sumcad darro ay ku keento maxaa yeelay waxaa dhici karta marka inay xasuuq far badan ay geystaan waxaa dhici karta maarta inay la kala saftaan ururada iska soo horjeeda ee dagaalamayo waxaa dhici karta maarta inay yani ciidamada qaarkood qaab micnaha yani aan wanaagsan inay howlgalaan oo markaa shicib fara badan ay meesha ku laayaan oo taa marka ay ka caroodaan ururada xuquuqda aadanaha oo ay ka caroodaan kuwa iska soo jeeda ayagoo islaynaya oo markaa yani sumcad darro weyn ku keenta yani ciidankii asluubta badnaa ay lahaan jirtay jimcida qurmaan ka dhacaysa laakiin xataa waxay ku xiran tahay howlgalka qaabka u sameeyeen iyo xaaladaha kala duwan ay ku kala nool yihiin maxaa yeelay waxaad arkaysaa yani ciidamada qaramada midoobay ee jooga Central African Republic xaaladda ay ku sugan yihiin waa ka duwan tahay kuwa Darfur ka howlgalaya ama ka howlgalaya Ciraaq ama ka howlgalaya xuduudda u dhaxeeya Lebanon iyo Israel qaramada midoobay waxaa lagu yaqaanay ixtiraamkii ay u haysay xuquuqda aadanaha iyo qaabka ay u difaacdo haatan loogu baaqay in ay awood isticmaalaan si ay isu difaacaan markay halis dareemaan arrintaasi ma laga yaabaa inay wax u geysato heshiiskii qaramada midoobay ee UN Convention loo yaqaanay Geneva ka dhacay hadday dhacdo inay howlgal sameeyaan oo marka ay ku laayaan shicib fara badan hadday dhacdo inay la kala saftaan kooxaha iska soo horjeeda hordamaya hadday dhacdo inay howlgal sameeyaan oo marka ay burburiyaan hanti shicib leeyahay marka waxay u keeni karaysaa inay macnaha ku xadgudbeen يعني حقوقي آدنها سيهاي مركو حادعي كرتا مركو إني فرطو إن حتى إذا مضى جبهة قربان كده حيستا فلك إنه عن جيستي تين محكمة لهور كيرو ومركا كيس عسكوس كفرتا إلي يدعي كريسا تا مركو وحيكو حيرانتا هاي المستقبل كيسي وخلقلان وحيكو حيرانتا هاي المستقبل كوحيكو بدلان نظام كيكو سعودين وحيكو حيرانتا هاي هاد بقى أنشحة iyo asluubta ay ciidanka marka yani meesha ka howlgalayo qaabka ay u arkaan dadka ka soo horjeeda laakiin waxa soo dir waxa loo ogaan doonaa mustaqbalka loo ogaan doonaa iyo qaabka ay u falgalaan maanta kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo u waramayay wariyaha BBC-da Ciise Xaaji Cabdulle aan ku codsada Cabdinaasir oo garabkayga fadhiya inuu inoo dulmaro wararkii ugu waaweynaa ee BBC-da mahadsanid bushra dalka Venezuela waxaa looga dhawaaqay doorashooyin xilligooda laga soo hormariyay madaxweyne Nicolas Maduro ayaa sheegay inuu u galiyo doorashadan si uu u helo sharciyad cusub si uu yiri uu dalkiisa ugu difaaco quwadaha caalamiga ah oo uu ku eedeeyay in ay kooxaha garabka midig la maleegayaan shirqoole dalkiisa ka dhan qaar badan oo kamid ah mucaaradka ayaa xabsiyada ku jira iyagoo lagu eedeeyay inay kiciyeen rabshado qalabka warbaahinta Mareykankana waxay sheegayaan in baaraha ama dacwad ogaha gaarka ah ee fadeexada ku saabsan faragelinta la sheegay in Ruushka ay ku sameeyeen doorashooyinka Mareykanka in markan uu doonayo in uu la kulmo oo uu maraan maro Donald Trump waxa ay kooxda Robert Mueller doonayaan inay Trump ka ogaadaan inuu isku dayo inuu is hortaago baaritaanka dalka Jarmalkana gudoomiyaha arrimaha dibadda ayaa sheegaya in dawladda Turkiga lagu soo rogo cunaqabatayn ku saabsan xagga hubka sabab la xiriira dagaalka Turkiga uu ka wado Suuriya waad mahadsan tahay Cabdinaasir idaacadii uu soo saaray Xasan Cali Geele anigoo Bashir Nuur Maxamed ahna aan dila socodsiinay waa nageyntaas intii ay dhaaftay idaacadeena waxay dib uga daalan karaan barteena bbcsomali.com tan iyo labada duurnimo waa bahday BBC-da oo idin leh waad ku mahadsantiin dhageysigeena Thank you.